السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب السود وهذا ما تحضرون إن برونو tutorials series أو كسبسن Microsoft Word Microsoft Word و software عاد مهمة مركا waxaan filayaa dee waa qaniin aan taariif faahfaahin uma baahna inaynu ka faalloonno ama wixii ay ka sheekayno qof walba uu yaqaan ayaan filayaa oo computer isticmaala marka Microsoft Word kaas ayaan doonayaa inaan isticmaalaadkiisa bal aynu dadku way yaqaanaan inta badan laakiin aynu xoojino oo si cilmiyeysan aynu u barano marka maanta wax badan qaadan mayno waxaan qaadanaynaa 6 cinwaan u baan qaadananaa basics Microsoft Word basics baynu qaadananaa marka horeysa waxa weeye waa create new file iyo waliba shortcut keeda oo ah control n and open new file open a file save file close file navigate in a file iyo Word interface-ka Word-ka waxaad samaynaysaa inaad soo kicisid Word-ka waxaad tegaysaa start button-ka ani task bar-kan u yaala laakiin adigu waxaad tegaysaa xaggan all programs ayaa tegaysaa waxaad kala tegaysaa waxa la yiraahdo Microsoft Office 2013 hoos baad u baxsaa halka ugu hooseysa waa kan Word waxaad kala samayn kartaa inaad halkan icon search-ka ku dhufatid dabeetana aad searching-ka ku qortid Word aad ku qortid Word aad ku qortid uu soo baxaya okay labada hab iska doonta samee marka soo fur kabacdi marka soo furtid waa sidan ku soo baxaya marka furtid halkan intan waxa weeye waa kuwani waa templates diyaarsan waxaad blank document waa dhigi kartaa intan ku waxyaabahan kalena waad ku fan kartaa waxyaabahan kana waa waxyaabo diyaarsan oo templates waxaad kula samayn kartaa templates kan haddii aad u baahantahay inaad categories u samaysid ama aad wax gaar ah rabtid xagga sare ayaad tegaysaa business miyaad rabtaa category-ga flyerska holidayska carska educationka electricska waxyaabahan iyaguna waa template diyaarsan marka waa kuwan halkan ku jira oo loo sameeyay categories loo sameeyay hadda way isku dhexyaacsan yihiin laakiin markan categories ay kala leeyihiin okay blank document baad ku dhufan kartaa blank document baan ku dhuftay xagaas marka waxaad inta ku qoran kartaa waxayna wixii waxa weeye waa inaan sameeyno marka ugu horeysa lambar 1 new file inaan sameeyno new file ayaan sameeynaa hadda file-kaas ayaa inoo qoran hadda halka inoo yaala oo aan soo furanay new blank ayaan sameynay waxbaynu ku qoranaa seen u kala saaro basics Microsoft Word okay kaas kala marka waxaan rabnaa inaanu mid cusub sameyno aan file cusub soo furo oo waxaan tii karaa file markaas waxaan sii dooran karaa new hadda waxaan dhahnaa blank document waka mid cusub weyn oo furkeen hore ma kan waxaana si shortcut ahaan aynu furnaa sidaas ka fudud keyboard-ka adigoo taabanaya hadda laba meelood baa sii tagtay file baad sii tagtay haddana new baad tiri meel ka dhow oo macnaha si shortcut ahaan aynu u furnaa hadda mar labaad don't save de halkan aad joogtaa waxaad rabtaa inaad document cusub aad furatid waxaad taabanaysaa shortcut-kan control plus n control plus n baan taabto ka mid cusub fura kaygi hore midaan ahayn cusub fura control plus marka inta tag lahayd file tag lahayd oo new c tag lahayd waxa kaaga filan inaad tiraahdo control n marka uu mid cusub furo okay waxa labaadan sameynayna waxa weeye waa inaan open sameyno marka waxa kana tagaysaa file waxaad open marka qayb ku siinaya wuxuu leeyahay recent fileski ama documentski baad furaysaa ma soo furaysaa kulka ka soo furaysaa computer wax soo furaysaa xaggan kale waxaan dhahayaa waxaad soo furtaa recent documents-ki soo furbandhaya marka recent documents-ki xaggan ay ku soo galayaan marka anigu kaab ugu horeeya ayaan ku dhufanayaa Microsoft Word basics oo kale aan ku dhuftay waa kan sidoo kale u soo okay waxaad samayn kartaa oo kale hadda file baad tagtay oo open baad ka sii tagtay halkaas ka sii tagtay open waxa ka fudud inaad samaysid shortcut ah control waka batsugi control ugu mataamanaysa batsugi okay waxa ku xiga waxa weeye waa save waa inaad hadda keenan oo kale save gareynaa file baad tagaysaa dadna hadda save oo uga save gareynaa
okay aan horta mid kala tagno control n san file cusub inuu save garana save file bindahana okay waxaad tegaysaa file waxaad sii tegaysaa save location ka dooranaysaa digaysaa talo aan waxaad dhigtaa desktop-ka iyo dhigaya magaciisuna waa file save file magaciisu weeye desktop-ka ayaana dhigtay xaggan hoose save as tape-ka waxaad rabtaa aad ku save garanaysaa ma word document baad deynaysaa ma word macro baad ku save garanaysaa ma word kana save garanaysaa ma word template baad save garanaysaa ma pdf baad save garanaysaa adigu waxyaabahan tabeskan kala duwan kaad rabtid ku save garayso anigu waxaan u deysanayaa word documentiga saan u deysanayaa ka u ahaa ayaan deysanayaa dabeetana save baan dhahayaa okay haddaan mar labaad save dhaho ima weydiinayo location bal eego location ma weydiin halkiisa hore ayuu ku save gareynay laakiin haddaan dhaho save as haddaan dhaho ama mar hore ku save gareysnaado ama mid cusub ha ahaade mar kasta wuxuu ku weydiinayaa location save as haddaan dhaho location ku weydiinaya marka save as iyo save waxay ku kala duwan yihiin save marka ugu horeysa buu ku dhahayaa location dooro laakiin hadhowta dad qoraalkii wax ka bedeshid waa istiraahid save garee waa save tiraahid location ku weydiin maayo halkeed hore uu ku save gareynay laakiin save as haddaad tirahdid hadduu qoraalku hore u jiray iyo hadduu mid cusub yahay labada jeer wuxuu ku weydiinayaa location mar kasta location ku weydiinaya save as laakiin save kan marka ugu horeysa uu ku weydiinaya sidaas weeye kala duwan okay inta markaa samaysid waxaa kaloo samayn kartaa waxa la yiraahdo shortcut baad samayn kartaa shortcutkaas muxuu yahay aan xagan ku noqdo shortcutkaas waxa weeye aad ku save garin karto waxa weeye control s bataabas okay aan ku noqdo aan tago halkan aan dhaho new blanket haddana aan dhaho new file aan dhaho saan u eegno aan ku qoro save another marka hadda waxaan isticmaalayaa shortcutkii control s baan idhi waxa location-ka ayuu weydiiyey waayo markii ugu horeysay location-ka aad ka dooranaysaa waa save garanaysaa sidii hore ayaa save garanaysaa iga cancel kan don't save day waxa ku xiga waxa weeye inaan file-kii close ku sameyno oo aynu xidhno close file-ka waxaad tegi kartaa halkan waad tegi kartaa dabeetana close waad dhihi kartaa halkaa close baad oran kartaa waxaad kula samayn kartaa inaad tagtid control f inaad taabatid sug aan hadda halkan ku tijaabino aan dhahno close file inaan xaggan teginaa hoos maxaan ka dooranaa close file ma save garaynaysaa buu yidhi ma save garayn maayo saasuu ku xidha mar labaad aynu samayno aan dhahno close file okay aynu taabano markaas waa markaad caadi u dooranaysid laakiin waxaa jira shortcut aad ku xidhi karto shortcut-kaad ku xidhi kartaa wuxuu yahay waxa weeye alt plus f4 okay alt waa line-ka ugu hooseeya keyboard-kaaga ayay ku taalaa space-ka ayay dhanka bidix ka xigtaa waa badhanka space-ka ka xiga dhanka bidix f4 na waa line-ka ugu sareeya ayay ku yaalaan functionskaas marka f4 altada hoose iyo f4 waa iskada ugu hoose iyo iskada ugu sareysa wayna isku beegan yihiin marka waxaad taabanaysaa alt plus f4 okay wuxuu yidhi ma save garanaysaa may baan idhi okay waxaa inoo soo haray navigate in a file haddii matalan ba computerkaagu bilaa mouse-ka yahay ama touchpad-kuusan ku shaqaynayn sidee adigoo aan waxaa isticmaalayn aad navigation-kan u tegi kartaa kuwan waxaa la dhahaa navigation baa la dhahaa xaggan sare waxaa inoogu yaala horta waxaa la yiraahdo quick access toolbar quick access toolbar-kan waa waxyaabaha Microsoft Word 2007 2013 2016 waxaba ku jira waxaba way la socdaan marka waa save iyo undo iyo redo iyo waxaas ayay u qaybsamaan
xaggan oo kale waxaa yaala navigation kan intan hoose ubucdan hoose waad iska xidhin kartaa markeedin ka sharaxana click badaasaa home-ka marka uu ka xidhmaya haddaad click tiraahidna wuu furmaya hal mar haddaad click tirahdid hal mar haddaad click tirahdid waad meel kale taabatay wuu isqarinaya soo ma aragtid haddaad mar labaad taabatid wuu soo furmaya laakiin kuma shaqaysan kartid markii uu iska kaa qarinaya marka haddaad rabtid inuu kuu taagnaado waa inaad laba jeer click tiraahdo marka uu kuu taagnaanaya noqon maayo xaggana waad ka xidhi kartaa andy baad dhihi kartaa flat iron code taagan baad ku dhufan kartaa wuu kaa xidhmaya marka habkeebaad ugu shaqaysan kartaa navigationkan seebaa u tagtegi kartaa adigoo bilaa mouse waxaad samayn kartaa waxaad taabanaysaa waxa la yiraahdo F6 okay F6 markaad taabatid wuxuu kuu saaray menu kasta wuxuu kuu saaray xaraf kuu saaray sooma haddaad rabtid inaad tagtid references ka soo haddaad S baad taabanaysaa wuu kuu soo saaray wixii gudaheeda ku jiray wixii ku jiray dhan kuu saaray hadhowtana iyagana xaraf kuugu sameeyay مثلا بقى art textigaas ayaan tagay baan taabanaya okay saas ayaad sameeyay waxa ku xiga waxa weeyaan rabnaa inaan isla eegno interface-ka work interface-ka work waxa weeye xaggan waan sharaxnay waa waxa la dhahaa quick access toolbar intan waxa la dhahaa waa navigation xaggan hoose hadaan tiraahdo intan waxa la dhahaa state marka waa xaaladda uu ku jiro documentigaagu xaggan pageska ayuu kugu tirinayaa waa one page xaggan oo kale waxa weeye waa wordska kugu save qoray wordska kugu qoran documentiga intan oo kale waxa weeye waa 39 word ama 39 words ayaa igu jira xaggan oo kale waa waxa la dhahaa hababka uu soo baxayo page-kaagu halkan oo kale waxa la dhahaa read more baa la dhahaa waa akhris kaliya male wax ka bedeli wax change-na kuma samayn kartid waad akhrisan kartaa kan waa kayn taaganahay aan wax ku qorano wax ku dhignayno waxaan isticmaalano kan oo kale waxa la dhahaa web layout baa la dhahaa oo sidii macnaha website oo kale ay kugu soo baxaya wax ballaaran ay ku dhigaya website ahaan ugu soo halkan oo kale waa zoom in iyo zoom out dad fogeysid saas uu noqonaya page-kaagu yaraanaya haddaad soo dhaweysid saas uu soo badanaya marka waa zoom in iyo zoom out halka bartanka ayaa la iska geystaa markasta si uu caadi normal ku noqdo maanta cashirkeenu intaas ayuu ku egyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.